صدق ما في عنينا قرول قلنا ولا يستو صدق واحد waxa la gabdhaha soo dhaweysanina hooyo ay cayriso wiilkeedana ay satay rabto Play Store ka kala soo degto Play Store ka laga helayaa hooyo la cayriyay wiil iska haystay اقرقني سننتذا دولة قصل وناقاقا قرقرنا انت جوقاقا السلام عليكم السلام صحابتي دمانتي maanta waxa la duubaya fikir ayamaan baraha bulshada wareegayo ah habluhu leeyihiin sadooday guriga lama noolaan karto adigaaga ay eegay hooyada inay guriga kula noolaato ma ogolaan lahayd gabadhaada ay eegaysaa inay sadooday inay guriga kula noolaato ma ogolaan lahayd haddana suuqa la socda wala soo duubaya asxaabta fikirkooda suuqa fikirka ka soo dhiibtaana waan arki doonaa asxaabta nagu soo biirayso waxa leenahay subscribe noo saara like share comment qurux badan la idinka arkade aan laftirkayga sadooday inay guriga kula noolaato waan ogolaan lahaa salaam calaykum عليكم السلام abay doodan neemaha baraha bulshada ka socota ay leeyihiin habluhu sadooday guriga lama noolaan karto sadooda inay guriga kula noolaato ma diidi lahayd maya ma doonayo sadooda ma doonaysid maxaa dhacay marba khilaaf socdo waaye adkay dheer sadoo maxaa diiday way khilaaf badan tahay sabab wiilkeedii uu ku qabaa madwaalanta oo jacaysa hooyadii maxaa jeclaan weyday maya way dulmi badan tahay ha aniga laakiin sadoo ma arkin ma arkin in dulmi badan tahay ku sheegay dadka ka maqlay dada ay la nooshaan waa arkay ay dulminayaan saac ma baranto sadoo ma doonayo dhibatay mid hooyadii dhibatay soo sheegay gabadha assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله abo doodan baraha bulshada ka socota habluhu leeyihiin wiilka hooyadii guriga lama noolaan karto maxaa ka leedahay والله waxaan ka leenahay hadda laba qof oo gabar iyo sadoodeed iskuma fiicna in isku meel tijiyo misaasay muuqato ka hooyada xaaskaaga ma uga amar qaadi leed inay guriga timaado ma amar qaadi hooyo waa xor waa imaanaysaa laakiin deganaanshaha way waxaan ka hadlayaa in hooyada guriga kula noolaato martinya aniga ahaan waa la rabaa hooyada inay noolaato laakiin saddex xaaskaaga rabina xaaskii waa diisrin waxa ogaa cololo ka imaanayo in meesha dhib ka imaanaya ogaa waa kala fududeyn lahayd وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اوكي ابو waxaan ku diinay doodan aymaan baraha bulshada ka jirta ay leeyihiin hablihii sadooday guriga lama noolaan karto maxaad ka leedahay wallahi sadooda horta kulay wiilka dhankiisa ha noqoto ama gabadha dhankeeda ha noqoto sadoo horta waa hooyo runtii lama ataagi karo ma la dhihi karo kuma noolaan karo qof kale sadoo nacayna qof waxay la macno tahay aniga raayahantayda hooyadiis nacay oo kale aniga sadooda ay guriga way ku noolaan ka dhaa waayo waa hooyada amal waxay iga soo xarootay ajnabi waxay ii noqoto maxramkayga maadaama maxramkayga ay noqoto marka xaafadayda way ku noolaan ka dhaa waana hooyada amal su'aasha labaad ee habluhu leeyihiin wiilka hooyadii guriga markay timaado anaa laga amar qaaday hooyada xaaskaaga ma uga amar qaaday inay guriga timaado aniga hooyaday ina xaaskayga uga amar qaadaya ma uga amar qaadeen taas mana ka yeeleen waayo qof aniga kulli waxaan is dhihi karaa aan hooyaday ribin dabcan aniga laftigayga rajo ma iga laha waayo waxa dhacwa cawaanimo hadii aan taas qofkii yeelo yiraahdo gabadhayda waxay leedahay ama xaaskaygiiba waxay leedahay saasay abaayay maxaan soo binaa runtii aniga taas ma ataageen mana ka yeeleen anigana hooyadeed ma buriyeen oo waxba kama weydiisteen gurigeeda haday imaanayso haday jiifanayso haday joogayso haday ka cabayso ayana ma su'aali ka hooyaday waayo hooyo waa intaas aanu raay ahaanteeda tahay waayo hooyo lama ataagi kara aaminsan abo macaan عليكم وعليكم السلام ورحمة الله abay doodan aymaan baraha bulshada ka socto ay habluhu leeyihiin sadooday guriga lama noolaan karto ay sadooda inay guriga kula noolaato ma ogolaan lahayd صدق ما في عنينا قرول قلنا ولا يستو صدق واحد waxa la gabdhaha soo dhaweysanina maxaa dhacay sadoo maxay ku xuntaa hooyada camal waa ay baaye war dulminay waa sadoo ma leedahay sadoo mari laakiin ila adiya shamaro ma barabta sadoo waa nacabtaa miya maya ala dilaadaa la yaxtaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله abo baraha bulshada ayamaha waxa wareegaysa habluhu leeyihiin sadooday guriga lama noolaanayso maxaa ka qabtaan walaalay ani horta hooyo waa ii hooyo gabadhu haday rabto hooyo ay cayriso wiilkeedana ay satay rabto Play Store ka kala soo degto Play Store ka laga helayaa hooyo la cayriyay wiil iska haystay okay habluhu su'aasha labaad maxay tahay hooyada haday ii imaanayso anaa laga fasax qaadanaya hooyada ma uga fasax qaadi leed xaaskaaga waxaas waxba kama jiraan waalid gurigan markii hooyo timaado aniga iyadoo guriga caruur baa kana hooyo maamulaysa hadayna ahsanayna
fuudka la cabta hooyadeed السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الفكر كان أيام برا برشة وريجي هبلوا لي صدقني يقولوا ما نولعنا السوم حاك اللي هذا إلهي أمرك صدقني هويدي تسافر الصعيد معها هي قفتان مع أنا نوري أركض معها ولا جنتي أنا يا بس ركوبنا مركها أنا دي هويدي ربين يعني يقفله أوكي سؤال لو هذا دائما حيد هن صدقني ده يقولوا إيمان السوم نكيتوا أنا جاي بعد بيجا أمر قاضي مركز يقولوا إيمان السوم حاك اللي هذا إلهي أمرك بارسيد أروق أنا قفتاس قفتها بعسم يا ورقفتي هذا أبي هراء هذا تري أرماس يقول سوق قاضي وعندي إيه سكجري عندي صح marka qofteeda waa iska baari qofteeda waa la yaqaanaa qof baariyada waay marka waxaas kuma degdegayso hablaha Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa waxaas fikir xawaa shisheeye wada waay marka inay ka digtoonaadaan su'aal isweydiima baahanba marka waxaan leeyahay diinteena waxay dhahday maamada labada lugood hoostooda ajnada la dhigay marka ayadana bari mustaqbalka maamay noqon doontaa marka gabadha saas dhayso 10 sano ka bacdi la tasriga bacdi hal weydii su'aashaas waxay leedahay macnaheedu liigu waxaana cunugeyga ana dhalasay leedahay maagta hadda gabarnimadaas yarta ee is leedahay marka fikrada shay wada waay halagal baa leeyahay qofteeda ay maqlee yaa xasiyaas igida ciyaarta adinka aad islaamaya عليكم السلام ورحمة الله أبا برا برشة أيامها وحوري صدقها هبلوا لي يقولوا يقولون ولا أنا سو حكى قبطان صدقها يقولوا إنه كلنا ولا عتما وقلنا هيد أبا ما تعلن صدق يقولون ولا عتما صدق كذا بدن مركا وحكستو معرتي ويلكيس ويلمت عشها وهايو مركا هر صدقه مركا واحد عاوزين أنا حاجة وسكون عنه كله أنا حاجة ما وسكون عنه مصدق واحد عنه مركا أنا أتاج سأل أنا لا أصير شيء أنا مرة للمقطع أنت أتاج لما صدق إنه نورات مرة ميادين هذا ما تحلاتين كلنا نورات أنا بس تعلن صدق إنه نورات مرة متعادين ما حد عايز سبب طويل كده شو سما قف قدام مستقبل هذا لقينا واحد سخبنا أصير تاجر أنا يروي أتاج أنا كده سوينه عادي أكرته مركا أنا حاجة سأنت دعيت مركا أنا صدقه إننا كلا دعية جعلها مركا ما تعلن كلنا ما تعلن صدق إنه نوراته السلام عليكم بعد عليكم السلام بعد قضاي ديرين يا السلام عليكم السلام بعد أبا صدقنا جروب كلنا نولعته ما قلنا هيد قلنا لها با قلنا لها حكوا قلنا هيد يا ما قلنا هيد با صدقي واي معاه أنت كفجينا يا صدقي واي أنت كفجينا صدق ما فوق السن ما فجي وصدق hablahan ayaamahan leh sadooday guriga gulama noolaan samxaa leedahay يا hablahan leh sadooday guriga gulama noolaan samxaa ka qabtaa fikirka ما في عنا با صدق معنا محل وحيدنا sadooda waa jeclaan leedna kula noolaa جعل الله يرين الله تعالى mahasina baad macay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة abaa dooda aymaan baraha bulshada haysataa maxaa ka leedahay maxay tahay baydoodaas waxay tahay hablii waxay dhaheen sadooday guriga gulama noolaan karto adi maxaa dhihi lahayd sadooda inay guriga kula noolaato ma jeclaan lahayd mise waa nici lahayd walaahi horta abaayo sadooda inay guriga igula noolaato anigu waan jeclaan lahaa because dee waa hooyaday oo kale marka fikirka ah inay sadoodu tahay hooyana dee meel loo dhaafa aanay jirin baa qabaa sadooda waa jeclaan lahayd inay guriga kula noolaato miya dabcan haa sadoo inay hooyataan aaminsanahay hooyadayna dee meelaan isaga dheeraya garan maayo maadaama ay dee ninkayga hooyadiis tahay mar walba waxaan u arkaa inay hooyaday kala tahay okay hablaha leh sadooda guriga gulama noolaana soo diidas maxaa fariin u diri lahayd waxaan u diri lahaa hablahaas runaantii sadoodu waa hooyo waxaan dhihi lahaa kole caasinima ku jirta sida anigu hadda aragtideeda ah marka fariintaan u diri lahaa kaliya waxay noqonaysaa dee inay aaminaan sadoodu inay tahay hooyana meel loo dhaafa aanay jirin maadaama ay jacaylkeeda hooyadiis tahay qofka ay nolosha la qaybsanayso hooyadiis tahay ilmaha iyadu dhashay iyadoo tahay meel u dhaafta marnaba ma jirtay waxaan odhan lahaa fikirkaa khaldan bulshada laga dhex saaro assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga ولا حليا مقعد محمد محمود maxamedow doodan hadda ka socota baraha bulshada oo ah haday guriga gulama noolaanayso maxaa ka qabtaa waxaan ka qabaa barnaamijkaas horta waxaan u arkaa inuu khaldan yahay barnaamij khaldan yahay fikir khaldan baan ka aaminsanahay barnaamijkaas ma garata waayo ma aha in la dhaho waxa weeye gabadha dhahaysa ninkayga hooyadiis gurigayga kuma noolaan karo waxaan aaminsanahay inay aaminsan tahay fakar aad iyo aad u khaldan because of hooyadii dhashay markaa cayrisid isagii guriga ugu haysanaysaa okay su'aashaad gabdho waxay dhaheen markay wiilka hooyadii guriga imaanayso anaa la iga amar qaadayaa maya taas waxa weeye ilaahay baa quraan ku sheegay dumarku waa maamadu waa guriga hooyada waa waxa weeyaan hooyadii waxa weeye guriga ninkuna waxa weeye wuxuu dheer yahay darajo ayuu dheer yahay soo maamulku waxa iska leh ninka iska leh maamulka guriga soo haday dhahdo aniga in laga amar qaato wax
la yeeli kara ma ahan ilaahay bana waana wax sharciya inay gabdhuhu marka waxa fiican dhinaca sharciga inay maartay mar walba fiiriyaan ayadu inaysan sodohda dagaalka ay la leedahay kale waa inaysan fiirin weyso وعليكم السلام abo waxa ku weydiinaya doodan ayamahan baraha bulshada ka socoto oo ah ay gabdhihii leeyihiin sodohday guriga lama noolaan karto maxaad ka leedahay والله horta aan barnaamijkaasi hooyo guri laga koorhayo mid aan taageersanahay ma ahan xaaskaaga dad ku tiraado hooyada guriga lama noolaanayso haday imaanaysan ana iga fasax qaasa maxaa ka leedahay ma taasi midaan ka yeelay ma sababtoo aniga dhan horta adduunka ilaahay ka sokoyo adduunka ilaahay dhalay sooyaday ma marka adiga ma ogolaan lahayd hooyadaayoo kale guriga laga koorhaya yeelaysa hooyadeedu soo korisay intaas waqti kugu soo lumisay adoo 20 jir ka dhigtay marka guursanaysa ku garab qabatay yaa waa ninka yeelaya hooyada guriga waa marqaadaya gabadhu waxay tir hooyada guriga ku noolaanaysa laakiin hooyada guriga kuma noolaanayso ka waran ma hooyada hadii isku qanacsaneen guriga ku noolaato taas inaan guursan baa iga fiican oo aan kala joogno ka joog baa leedahay joogto